Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran janalkeena caafimaadka ee Caafimaad Janal. Waxaan ka hadli doonaa maanta geedka loo yaqaano cambaruudka iyo faa'iidooyinkiisa caafimaad. Cambaruudku waa miro kulansaday nafaqo kala duwan oo jirka qaybihiisa kala duwan wax u tara. Waxaa laga helaa vitamin C, potassium, vitamin K. Sidoo kale waxaa laga helaa kobar iyo magnesium. Waxaa kaloo ku badan geedkan cambaruudka maadada jirka sunta ka saarto, taasoo loo yaqaano antioxidant. Waxaa kaloo ku jira maadada fiberka, taasoo aad ugu wanaagsan dheefshiidka. Haddaba waxaa laga helaa 8 faa'iido oo waaweyn. Faa'iidada koowaad ee laga hela cambaruudka, difaaca jirka ayuu u wanaagsan yahay. Cambaruudku wuxuu kor u qaadaa hawsha unugyada difaaca jirka. Waxaa ka buuxa vitamin C oo muhiim u ah difaaca jirka. Cunista cambaruudku waxay hoos u dhigtaa halista xanuunada ku dhaca ama ka dhasha difaac yarida sida hergabka iyo efilida. Faa'iidada labaad ee laga hela geedkan cambaruudka, wuxuu u wanaagsan yahay dheefshiidka. Cambaruudka waxaa ka buuxa fiber, wuxuu u wanaagsan yahay caafimaadka dheefshiidka, saxaradana wuu jilciyaa. Faa'iidada saddexaad ee laga helo geedkan cambaruudka waa ka hortagidda kansarka. Vitamin C-ga iyo maadada jirka sunta ka saarto ee antioxidant ee laga hela cambaruudka waxay ka hortagaan in jirka ay ku samaysmaan waxa loo yaqaano free radicals oo ah maado kiimika ah oo sababta cudurka kansarka. Faa'iidada afaraad ee laga helo, wuxuu u wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha. Geedkan cambaruudka waxaa ku jira waxyaabo ka ilaalin karo xididada wadnaha inay fariistaan dufanka kolestaroolka loo yaqaano. Xididadaas oo xirma waxay sabab u noqdaan ama ay sababaan wadna qabadka. Haddaba qolofta cambaruudka waxaa ku jirta maadooyin la yiraahdo quercetin iyo porcinides, kuwaas oo wanaajiya caafimaadka wadnaha. Faa'iidada shanaad ee laga hela geedkan cambaruudka waa ka hortagga sonkorowga. Cambaruudku wuxuu u roon yahay xakamaynta sonkorta jirka, sababta oo ah waxaa ku jirta maado la dhaho anthocyanins. Cunista cambaruudka oo la joogteeyo waxa ay yareysaa khatarta cudurka macaanka nooca 2. Cunista cambaruudka oo la badsado waxay yareysaa in ay sokorta nooca 2 yareyso, noocaasoo ah nooca u badan ama badiyaaba ku dhaca dadka waaweyn, halka nooca kale ee loo yaqaano nooca 1 uu aad ugu badan yahay carruurta. Faa'iidada 6, miisaan dhimista. Dadka doonaya in ay iscaateeyaan aad ayuu ugu wanaagsan yahay geedkan cambaruudka. Cambaruudku waxaa ku yar kaloriga, waxaa ku badan biyaha, waxaana ka buuxa fiber, taasoo ka dhigaysa cuntooyinka u roon miisaan dhimista. Dadka doonaya inay iscaateeyaan mar walba waxaa lagula taliyaa inay iska yareeyaan cuntooyinka ay ku badan yihiin kaloriga, sidoo kale ay badsadaan biyaha cad, ayna badsadaan cuntooyinka fiberka ka buuxo. Haddaba geedkan waxaa ku yar kaloriga oo ah wixii ay iska ilaalinayeen dadka raba inay iscaateeyaan. Sidoo kale waxaa ku badan biyo oo iyadana ahayd in ay badsadaan dadka rabaan inay iscaateeyaan. Waxaa kaloo ka buuxa fiber, taasoo iyadana u wanaagsan dadka doonaya miisaankooda in ay dhimaan, sidoo kalena calooshooda jilciyaan. Intaas oo u kulansada geedkan ayaa waxaa ka dhigaysa in uu yahay miisaan dhimis aad u wanaagsan. Faa'iidada 7, wuxuu u wanaagsan yahay aragga indhaha. Cambaruudka nooca cagaaran wuxuu xoojiyaa aragga maadaama ay ku jiraan dhowr maado oo indhaha wax u tarto. Geedkan cambaruudka indhaha ayuu aad ugu wanaagsan yahay, waxaana ku jira maadooyin dhowr ah oo indhaha u wanaagsan waxna u tara. Waxaa ka mid ah maadada loo yaqaano korotiin labadeeda nooc oo kala ah
lutein iyo zeaxanthin. Geedkan cambaruudka haddii indhaha laga hayo waa uu ku wanaagsan yahay oo ku dadaal oo badso asiga iyo karootada. Faa'iidada 8aad, wuxuu u wanaagsan yahay dhiigkarka. Cilmi baaris uu sameeyey Macadka Caafimaadka Qaranka ee Mareykanka ayaa lagu ogaaday in joogteynta cunista cambaruudka ay hoos u dhigto cadaadiska dhiigga. Maadada magnesiumta ee ku jirta cambaruudka waxay ka qayb qaadataa kontaroolista cadaadiska dhiigga. 8dan faa'iido ee soo sheegay kuwaasoo kala ahaa in uu u wanaagsan yahay dhiigkarka, sidoo kale indhaha dadka daciifka ka ah ama ka cabanaya in uu aragooda daciifay aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Dadka doonaya miisaanka inay iska dhimaan ama ay iscaateeyaan, wuxuu kulansaday waxyaalihii looga baahnaa qofka iscaateynayo, taasoo ah kalorigii inuu ku yar yahay, biyaha inuu ku badan yahay, fiberkana inuu ka buuxo. Sidoo kale wuxuu ka hortagaa sonkorowga. Sonkorowga waxaa jira 2 nooc, nooca 1 iyo nooca 2. Nooca 1 badiyaaba wuxuu ku dhacaa caruurta. Nooca 2 oo ah nooca u badan dadka waaweyn ayuu ka hortag u yahay daaweyaane cambaruudka. Waxaa kaleeto ka mid ah faa'iidooyinkiisa in uu u wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha. Haddii ay ku xirmeen xididada wadnaha ama haddii uu jirkaada ku badan yahay kolestaroolka, waxaa ku jiro geedkan maadooyin u fiican kuwaasoo ay tahay inaad ku dadaasho. Waxaa kaleeto ka mid ah faa'iidadiisa, wuxuu ka hortagaa kansarka maadaama ay ku jiraan vitamin C iyo maadada sunta jirka ka saarto ee loo yaqaano antioxidant. Sidoo kale waxa ay ka hortagaan in uu jirka ku sameysmo free radicals oo ah maaddo kiimikeed taasoo sababta cudurka kansarka. Faa'iidadiisa xigta waxaa ka mid ah dheefshiidka. Cudur oo idil waxa uu ka imaadaa caloosha. Haddii ay dheefshiidkaadu saxan yahay, cudurro badan ayay daawo kuugu tahay. Haddaba geedkan cambaruudka waxaa ka buuxa fiberkaasoo u wanaagsan dheefshiidka, sidoo kalena waxa uu jilciyaa saxarada. Iyo faa'iidada kale oo ah difaaca jirka. Waxaa ka buuxa vitamin C taasoo muhiim u ah difaaca jirka. Difaaca jirkaaga haddii uu sareeyo waa ay u wanaagsan tahay caafimaadkaaga. Haddaba intaas oo faa'iido iyo kuwo kaloo badan ayaa laga helaa cunista geedkan cambaruudka. Waan filayaa inaad ka faa'iidaysateen ood ku dadaali doontaan. Fadlan ha ka iloobin fiidiyowga inaad like saarto oo u share garaysa asxaabtaada si ay iyagana ugu dadaalaan oogana faa'iidaystaan. Wassalaamu calaykum.